عليه الوذن لا قوشانو أرسليو هنقيا 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 نوريني نو ورتني هنقرنا ما يسهل كده وداي المصبيحية سومالان محضرونيسا حبت أرمينا ولا حان دهيناه اسكسوق أدوك دي ميني أمانو شجناه ورينا واه هذا شاندات كان واه marka warkaas waa la yaabi jiray markii la sheegi jiray laakiin hadda ay cadaato sagaaradiinba aan weyne wargooyo war ma hayside sagaara mar hore xabad ay raacdaysi kuwii u dambeeyna qadar laga yiibi ayaad raadinaysaa indhaha kala qaad araada qof ul dheer wato noo soo celceliya allahna siiyo argooyo kurburoog walgaaday hanagadan wiilashaba ma sheegne iimanka kiyaa ugu dhugsoy waraa qurba joogtaada ma ahan dadka kala baro qurba joogtu waa kuwa dalkooda iyo dadkooda wax tara oo waqtiyadii aad ka lagu soo mooday iyo in yar oo inta qurbaha ku soo fashilantay jaakada noo soo qaatay ayagoo xirxiran oo xildoona noo yimid ha isku darin marka dadka ma kuwa 6 saac maarsi jaakadaha gashan ba ma maqlina miyaa nin xil qaaday qaadiyey hoy hoy abdulow ma dheegna maaha nin xil qaaday ay qaaday hey hey wareer dhaqoladiina kalmaan waxaan leeyahay ragalow maslaxadeena guud kala mudnaanteeda muslimnimada aan haysaniyo maxamed yaa diiday dusha madabka Soomaaliyeed magacayaa diidan dawladnimo inaan muujiniyo yaa midnimo diiday military inaan yeelaniyo cudud mid ma diidan abdi wali gaboosow gabagaaga wariiga baxay horta military inaan yeelano Kenya diidan oo badaanya nagu haysatay midnimadana heer waqooyi yaa diidan nabi maxamed shabaab diidan xad ku warame war waqooyi maxaad ka rabtaa Puntland aad tiri qariirad cusub aan samaysanayna oo Soomaali gaarka galmudug ba waa samaysan rabtaa xad la qaylqaylihe koonfur galbeedna ta feedfeedashoodiya ka jarta araada jabla mar horay ba diyaarsatay intaas waaba gardhe hirshabeelle yaa u maqan he war hirshabeelle wadada wadnaha magaalada muqdisho ay ka bilaabataa koonfur galbeedna wadada makaal mukarramay ka bilaabataaye aawa muqdisho banaadir marka war waa xamrweynay shangaani warnimada war ma haysiina waxaan la yaabay waxaan dhageystay ilmihii habeen dhaweed hotel Aswaal ka dagaalamayay cod laga duubay mid ay wareysanayeen idaacadda shabaab wuxuu yiri war adiga laftaada ku kala maxay idaacad shabaab u dhageystay war waxaan internetka soo galiyay naga dhageyso warka horta internetka kurtii waa jajabiha hadda kadib shabaabna ma warkiisa noo soo gudbiha war haddaad jajabi kartay jajabiya warka naga sug wiilkii wuxuu yiri kow markaan hotelka soo galnay qolo meel barxada fadhiso shaa iska cabaysan bumba dhaxdhig yaa shantoori waa la dila lalahaaya kan warramaana xoog yahay war intaan la dilina la wareystay warka naga dhageyso wuxuu yiri kadibna waxaan maqlaynay abaadkooda iyo tawxiidkooda shaatiinkooda aan maqlaynay tawxiidkooda aan maqlaayo mugow leeyahay dad shahaadaha ayaa dhiigoora u baneeyay isaga war ma haysiina hadda ka hor amiir ayaa wiil wuxuu u sheegay inuu ku riyooday isagoo jannada lagu daadaynayo yaa riyana xaytaataan arkaya anoo ridayda la sheekaysaayo miyaysan ahayn wariyadaanu taada waa ka weynteena sugniyo wiilkii asagoo faraxsan oo hooyadii u tagay wuxuuna yiri amiirkaygu wuxuu ku riyooday anigoo inta shahiiday jannada laygu soo dhaweynayo hooyadii inta ka aamusay subaxii dambe la hadashay waxay tiri wiilkaygii oo naxala waa riyooday riyadii amiirkaagana runay ahayd waxaanu ku riyooday adigii amiirkaagu inta dagaal gasheen ood ku shihiideen oo jannadii leedku soo dhaweynayo wiilkii asagoo faraxsan oo amiirkiisii u tagay wuxuu yiri amiir riyadaadu saxay ahayd hooyadayna xalay waxay ku riyootay aniga adigoo inta shihiidnay jannadana lagu soo dhaweynayo amiirkii wuxuu yiri hooyada waa shaydaan murtadada riyadeedana waxba kama jiraan war mar horaan waxaa la yaabay jannada nimanka waaweyn ay ka gabanayaan oo caruurta galaliye war jinna camala lagu galaa iyo naxariis ilaaheeye jannadaan dadku qoraya maxay tahay farax shawle wuxuu yiri jihaad ruuxa naga doonayay Yurubka soo duulay danow leeyahay ma asaga gaalow dila waaya duf ha ku baxeen war ma haysaana madaxweynaha Puntland Siciid Dani warada dhaqameedida u xirnaa masiiday wuxuu daafuray guddiga doorashooyinka ee Puntland war kale idinkaga hayay isuga wuxuu yiri sharciga doorashooyinka baarlamaanka federaalku ka doodayo sharci ma ahan waana baati wadadii loo baahnayna lama marsin wuxuu kale yiri guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Xaliimo Yaray gudoomiyaha u tahay ma afhayeenka dawladda mise waa guddi madax bannaan oo xisaabta oran u dhaxeeya waa kala garaweyno waxay yihiin sababtoo ah markay hay'adaha caalamka la hadlayaan sida dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada eedeeyaan war Siciidani wuxuu kale yiri waxaan xog ku helnay shabaab in qaraxyada laga kireysto war anagana waxaan xog ku helnay in dhagaxaanta Muqdisho ay shirkad samayso dawladda laga kireysto adiga Siciidani ma xog fiican aad haysaana soo bandhiga
sayidani tiis riwaahu imaaraadka miya wartayda waa riwaahu qadar maday isaaqow hadduu madaxweynaha puntland ku afgaran lahaa weligaa xabsiga kama soo baxdeen warnimaya war ma haysaane ra'iisul wasaare khayre wuxuu ka hadlay shirki ka socday dooxa dalka qatar wuxuu kaloo la kulmay xogayaha maaliyadda maraykanka oo uu kala hadlay deyn cafinta war anaa baqaa faluus erayhe allaha kaa cafiyo khayre carabi kuma hadlin xow ku warramay hee wareedhaaya dayn cafintii miyaa ra'iisul wasaaruhu duubka u xirtay markii bayle ku daalay war soomaaliya iska min baagastronga uu yidhi warka naga dhegaysta taageerayaashiisa facebook waxay ku soo qoreen xabiibulmalaayiin ayaa maanta ka hadlay dooxa waxay intaas sii raaciyeen hiigsi iyo horumar ammaano iyo adeeg hufan nabad iyo nolol aryaadhaha xabiibi malyuun waa maqli jiree horta tumay ahayd war xabiibulmalaayiina lagu yidhi midkay malaayiinta jeclaayeen war ciyaarka xooga facebook malaayiinta ku saxarada sanduuqa baylii khayre mala socdaan wareedaa war ma haysiine duqa caasimadda muqdisho iyo duqa caasimadda dooxa waa kulmeen waxayna ku heshiiyeen in la mataaneeyo labada caasimadood war shaybal muqdisho wa shaybal dooxa iltaqiyaani miya warkaada war yaa cumar filis shayb maaha waa guddoomiyaha gobolka banaadir ba'dulkalaam tafarraqaani waay arooda saas maaha barkee iyo nombari kubaare gashanone kusneeti barle kuwi barle say kabito si signore waaye arrinta war taageerayaasha cumar filis waxay soo qoreen muqdisho sidii dooxa loo dhisaya taageerayaasha waa tuhme tahliil miyay ku soo tuufeen taageerayaasha waa tuhme tahliil miyay ku soo tuufeen war ma haysaan haddaad arki jirteen shacab jid laga xidhay maanta xildhibaanadiyaa jidka laga xidhay madasaafadal adaala hata degaana hayehe mahay caada ka lug beeli jirta aha qoladina reer kalamaan waxaan u sheegayaa somalilan inaan laga aqoon waddo la xidho war ma haysiin haddaad arki jirteen ciidan jid xidha maanta xildhibaanaa jidka xirtay yaa jawaari ma joogo miya nidaam ou dhihi lahaaye war guddoomiyigii laga kalsoonay maday mursalaha ayaa rooga may baa lee walaagay abashe aysan qabtaan ha gudbiisada war guddoomiyaha iskada wareeggii nabad iyo nolol u bartay arooda xildhibaanada markii jidkana ciidan la maraan loo diiday ay jidka xirteen ayaguna maqaadicu dariiqiin bay noqdeen war aan hele awlaadii awlyo gurbaan dhoow gordaw iyoona sisargooyinka gordaayan aleeri war ma haysiina taliyihii ciidanka dhulka wuxuu isu keenay odayaashii beelihii ku dagaalamay mudug afbar waaqo iyo tawfiiqna waa uu tegey nabadayn wanaagsanna waa ka sameeyey ciddii maanta kadib dagaal bilowdana tillaabaan ka qaadaynaa buu yidhi waryaa jenaraal dirir waa soo dhigtay warnimayo waxaa la yidhi dowladnima halbeeg bay rabtaa heer tilmaamo leh hage iyo dastuur bay rabtaa lagu heshiiya hay-ado shaqeeyay rabtaa howlwadeenna leh hoggaan daacaday doonaysaa oo horseed u ah dhallinyaro hub qaaday rabtaa heegan ciidana war ma haysaan eritariya soomaaliya cayaarta ka dhexdhacday waa la yaabay eritariya dhaxandhaxan ma yiriheen he war dhaxandhaxan ta dhaafeena dhulka lala simay waryaa kamay wicilkee dhihin weli kamay wicilka ma ununkaa eritariya beriga wacalna tiri minaysan hoogan hiintaday ee habartay war see tahay ayay ka wadaan aandhaluuma dhahaanoo he war ma haysaan cayaarta naga dhagaysta soomaaliya eritariya waxay uga badisay eber iyo eber naga tag eber maa badina mugga war yaa eber tiraday ka mid taha soomaaliyana burunteeda inta ka badisay eritariyana eber iyo eber ku xaaqday badinta ka badana sugaysaa waa maxay war ciyaartooygii reer muduga tooradii u xirnaan jirtay maxaa loogu tegey naga shible kuwaasu dagaalay ku mashquulsanaayeene war yaa inaa eritariya ka badanayaa muranka qaba qaadi karaa anigu ebertaa naga taga jirnadii allahaydin geeye